kulankan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana uu garwadeenka ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo ujeedka kulankan uu ahaa mid lagu xisaabtamay golaha wasiirada isla markaana soconayay muddo 5 cisho ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa golaha wasiirada kula xisaabtamay shaqooyinka ay qabteen sanadii dhamaatay waliba qorshayaasha ay kala yihiin sanadan cusub markuu kulankaasi soo ilaaday ayaa wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud waxa uu sheegay in si guul ah ku soo dhamaaday kulankaasi isla xisaabtanka ahaa isla markaana golaha wasiirada lagu xisaabtamay shaqooyinkii ay qabteen shantii bari ugu dambeysay ra'iisul wasaaraha wuxuu la fariistay wasaaradaha 26 wasaaradood iyo gudoomiyaha bangiga dhexe 27 ku noqonayo oo laga xisaabtamay waxyaalaha la rabo in la dardargeliyo 2019 wasiir walba wuxuu siixay xaashida heshiiska ah ama commitment sheet waxay yiraahdaan una ballan qaaday 3 ama 4 halbeegi waaweyn oo mugle oo waxtar u leh wadanka laguna xisaabtami doono wasiirka shacbiga Soomaaliyeedna waxtar u leh ay arki karaan markuu sanadka soo ilaado haduu Ilaahay ilaaliyo marka waxaan rajaynaynaa inay wasiirada ka howlgalaan waxyaalihii lagu la ballamay ra'iisul wasaaraha commitment sheet kaasna waxa saxiix doona wasiirka wasaaradda iyo ra'iisul wasaaraha annagana xafiiska ra'iisul wasaarahan documentigaas waxaan ku hayn doonaa xafiiska si marka sanadku soo ilaado isla xisaabta soo socdo loo arko waxyaalaha ka qabteen Samir Cabdirasaaq Umar wararka telefishinka CNA magaalada caasimadda Muqdisho.